السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا مركله لمعني قرنية الدورتي oo kala tagay hadana dhaxmareyso aflayaada iyo waxaan isku habooneen waa sidee dhaqanka Soomaalida laba qof waxa la isku hayo markay kala tagaan inay aflaadiyaan ama ismaayaan maxay ka qabaan dhaqanka Soomaalida waa maxay dhaqanka waxaan oo soo baxay nin naagtiisa oo kala tagay inay midba mid isa soo hayaan maxay tahay dhaqanka Soomaalida ku soo batay inay aflaadiyaan dad hore u soo maray nolol wanaagsan maxay kula tahay dhaqanka Soomaalida gaalka soo xumaanay qaas ahaan si fanaaniinta isto sidee u aragtaa qof aad nolol wanaagsan isla soo qaateen inaad gaal iska aflaadisaan ama aad gashaan fadeexad aad u weyn markii ay nolol kala ilaato wax walba waa muhiim laakiin calafka ayaa ka muhiimsan bal ila daawo muuqaal aan ku habboonayn bulshada dhexdeeda maxay tahay farqiga u dhaxeeya fanaaniinta hadda jira iyo fanaaniintii hore waa maxay sababta u dhaxaysa in laba qof oo lamaana ah ama nolosha ka dhaxaysay ana dad aanan macquul ahayn waxaana dhici karin inay sameeyaan waayo Soomaalida inta badan ayaa ah qofba kale inuu ku gaaro dantiisa oo fanaaniinta hadda jira ayaaba sidaa ah dhageysto maxaa kula talinaysaa fanaaniinta hadda jira ee dhaqamadooda aadka aan muhiimka u ah haddana waxaanan macquul ahayn la keeno ma kula tahay mid jirta ama ma tahay dhageysto Soomaalida inay yihiin dan ku gaar oo dhammaan Soomaalida dhan ayaa ah inay qofba kale inuu ku gaaro dantiisa waana sababta aan u horumari laanahay haddii aan nahay waayeel iyo ciroole maxay tahay dhibaatooyinka u dhaxeeya fanaaniinta cusub suugaani iyo noloshiisii hore oo isku xifaaleynayaan suugaano erey suugaanaysan ama mid kale uu soo jawaabay iyo heeso aan ku habboonayn inuu soo bandhigo bulshada dhexdeeda maxay tahay cadaawada u dhaxaysa dad isla soo wada qaatay nolol aan caadi ahayn ama nolol aad iyo aad u muhiim ah dhageysto kula tahay aad fikirkaaga qof aad nolol isla soo qaateen inaad xumayso ama aad wax ka sheegto